haweeneydan Diana Lawson oo ahayd maalgeliye guuleystay ayaa waxay sarkaysaa iyadoo markaasi lagu xiray meesha waalida taasoo loogu talagalay in lagu xiro dadka dambiilayaasha ee waalan. Diana markaasi waxaa lagu xukumay inay dishay dhammaan 8 xubnood iyo sidoo kale xoghayihii shirkadeeda kadib markii ay ka diideen soo jeedintii ay u soo jeedisay. Diana waa ay diiday inay qirato dambigaasi balse feelashii laga helay xoghayihii la dilay ayaa waxaa ka muuqatay muddadii uu socday kulanku in markaasi Diana laga soo wada horjeestay taasoo keentay dood. Diana markaasi waxaa la helay iyadoo suuxsan qolka dhexdiisa waxaana helay security-gii kuwaasoo maqlay dhawaqa xabadda welina waxay gacanta ku haysay biskooladii. Diana waxay marar badan ku celcelisay inaysan wixii dhacay xasuusan cadeymuhuna aad bay u tiro badnaayeen. Waxay cadeyntii ugu dambeysay soo baxday markii kiiska lasii xiriir rabay ayaa Diana oo aad uga xanaaqday waxyaabihii iyada laga sheegayay kusoo booday looyarkii kadibna gadaasha intay ka fuushay ka goosatay dhegtii isagoo cabsanayo. xanaaqeeda tirada badan iyo gacanka hadalkeeda kala joogsiga lahayn ayaa ugu dambeyn waxay ku sababtay Diana in nafsadeeda aragto iyadoo markaasi ku jirta isbitaalka waalida. Waxay marar badan ku celcelisay markaasi inaysan waalnayn Diana balse maskaxdeeda aan fadhin darteed waa loo jeedaa inay waalan tahay. Waxay awoodaa inay xasuusato wixii hore u dhacay wixii dambaba waxayna markaasi aaminsan tahay in iyada waxani faji loo dhigay yahay. waxay la kulan maalinlaa la lahayd dhakhtaraddeeda taasoo aysan marnaba la hadlin. Waxay ku jirtay markaasi shoog sidoo kalena aad ay u xanaaqsaneed markaasna waxay ka xumeed xaaladda ay ku jirto. dhakhtaraddeeda waxay hadli jirtay saacado badanka hadallada ay ku hadlaysana ma aysan fahmi jirin. markaasi Diana waxay aaminsaneed in dhakhtaradda tahay qofka u baahan in la xiro aysan iyada ahayn. ma aysan rabin inay markaasi aaminto Diana inay waalan tahay. subax kastana markaasi waxaa lagu xiri jiray sariirta markaasna waxaa lagu dhajin jiray koronto aad u tiro badan oo maskaxdeeda iyadoo la rajeynayay inay waalida ka ba'do. markii aan la koronteynaynin Diana markaasi waxay ku jirtay qolkeeda taasoo lagu xirxiray kaligeed iyadoo ah oo cidlo dareemayso una dhaxaysa darbiyada aadka u qabowga badan ee isbitaalka waalida. bilo badan oo kadib taasoo wax isbedela ka muuqan Diana ayaa maamulihii isbitaalka wuxuu soo galay mid ka mid ah kulamadii ay la kulmi jirtay Diana dhakhtaraddeedii. markaasi wuxuu weydiiyay Diana inay jeclaan lahayd in kale inay markaasi maamusho xisaabaadka isbitaalka. Diana iyadoo faraxsan ayay ka ogolaatay markaasna waxay ogeed inay ugu dambeyn helayso wax ay waqtiga isku dhaafiso. dhakhtaraddeeda si xoog ah ayay markaasi u diiday. Diana markaasi waxay ahayd dilaa aan la ogaan karin wax ay sameyn doonto. waa in markastana isha lagu hayaa oo aan la sii daynin. maamulaha wuxuu u sheegay markaasi Diana wejigeeda iyo gacmaheeda iyo lugaheeda inaan laga furi doonin waxyaabaha ku xiran markaasna isaga isha ku hayn doono waqtiga iyada la joogto. dhakhtaradda sida muuqata arrintani kumaysan faraxsaneen balse wax joysa maysan lahayn. ugu dambeynna way ogolaatay. Diana waxaa laga soo saari jiray qolkii ku xirneed hal mar isbuucii markaasi lagama furfuri jirin waxa ku xiran waxayna dhaafi jirtay hoolka qabow iyadoo maqlaysa qaylooyinka kadibna loo kaxayn jiray xafiiska. si fiican ayuu ula dhaqmi jiray isha ayuuna ku hayay. markaasina wuxuu weydiiyey inay kasoo bixiso lacagta ay ugu deeqday dowladda isbitaalka kadibna ay u wareejiso cryptic account ah kaasoo ay adag tahay markaasi in loo daba raaco maamulaha. inkastoo lagu qasbay inay ugaasinimadeeda u wareejiso ninkeeda kadib wixii dhacay laakiin weli waxay ahayd xisaabiye u qalma markaasina waxay ka ahayd mas-uul dhammaan kala wareejinta. taasi waxay ahayd tilaabo uu isticmaali karo maamulaha si isku difaaco haddii lagu qabto ficilka aan sharciyeysnayn ay sameynayaan. waqti badan markii uu kasoo wareegay Diana waxay bilowday markaasi inay degto oo ay la sheekaysato maamulaha mar walba markaasina waxay u ekaanaysay inay qof caadiya noqonayso. weli way xirxirneed laakiinse markii loo yimaado dhakhtaraddeedoo taasoon weli aaminsanayn inay fiicnaanayso taasoo sidoo kalena aad uga masiirsaneyd xiriirka bilowday inuu ka dhex bilaabmo Diana iyo sidoo kale maamulaha isbitaalka. taas ayaa ku sababtay dhakhtaradda sidii hore si ka daran in loola dhaqanto markaasna waxay usoo dejisay brograam ah in korontadii lagu dhejin jiray Diana loo laba jibaaro. markii ay Diana arrintani maqashay aad ayay u naxday waxayna bilowday inay gariirto taasoo markaasi ku sababtay dhakhtaraddu inay aaminto inay u baahan tahay korontadaasi intii hore in ka badan. Diana waxaa loo soo jiiday qolkii korontada markaasi way qaylisay waxayna bilowday inay oydo waxayna codsatay inay aragto maamulaha. kee dhakhtaradii ayaa tiri qof magacaas leh xagan ma joogo. Diana oo yaaban ayaa weydiisay waxay ka wado
iga daa ciyaarta, waxaan rabaa inaan arko maamulaha, waxaan rabaa ninka meesha maamula. Dhakhtaraddu waxay bilowday inay ku ciyaarto qofka meesha maamula, ma waxaa ka wadaa boqorka. Diana oo yaaban ayaa waxay weydiisay waxay ka hadlayso, maxaa weeye boqorka ay sheegaysin, waxaan u baahanahay inaan arko maamulaha. Wax maamulo la dhaho xagan ma joogo, kaliyaata boqorka ayaa joogo, asagoo ku jira qolkiisa dahabka yaallo. Maxaa ka wadaa ayay tiri Diana, aad ayay u yaabaneed. Ugu dambeyn waxay go'aansatay inay geemka dhakhtaradda ciyaarto. Waxay tiri, haye waxaan rabaa inaan arko boqorka. Ma taas ayaa rabtaa ayay tiri dhakhtaradii, haddaba sidee ayay xagga ku gaaraysaa? Diana oo aad u xanaaqsan ayaa markaas waxay tiri, iskoobahayga duulay ayaan ku aadayaa mise kale ayaan ku aadi lahaa. Waxaa markaasi rabtaa inaad ku duusho iskoobahaaga kadibna aad la kulantay boqorkeena ku jira qolkiisa dahabka. Diana way quusatay, markaasna waxay tiri haa, dhakhtaradii way dhoola cadaysay, waxayna tiri hadda waxaa ii cad inaad waalan tahay, markaasina aadan wax rajo ah aadan lahayn. Diana way naxday, markaas wax option maysa lahayn, naagtan waalan ayay gacanteeda ku jiraa. Birihii ayaa markaasi madaxa laga saaray, waxaana la bilaabay daqiiqado gudaheeda in markaasi Diana si xun loogu dhajiyo koronto. Diana qolkeeda ayaa lagu soo ceshay, kadibna dhulka ayaa lagu soo tuuray. Markaasi albaabkii weynaa ayaa la xiray, iyadoo looga tagay mugdi, iyadoo markaasi ay xanuun saa'id dareemayso. Waxay ku silicday markaasi inay kor isku qaado. Waxay ogeed in markaasi ay ku qasban tahay inay sariirteeda fuusho intaysa suuxin, haddii kale dhulka qabow ayay ku suuxaysaa. Way isku dayday, balse way awoodi weysay. Jirkeeda aad ayay u daalnaa, madaxeedana wuu xanuunayay. Markaasi si kadisa gacan ayaa mugdiga ka timid, waxayna qabatay gacanteedii. Way qaylisay, markaasina waxay awooday inay gadaal u baxdo, iyadoo dhinaca albaabka xigsanayso. Wixii madoobaaya meesha taagnaa ayaa markaasi afkiisa gacanta saaray, wuxuuna yidhi fiiri, waan awoodaa inaan meeshan kaa saaro, laakiin caawinaadaada ayaan u baahanahay. Yaah ayay dhahday, adiga yaa tahay, sidee ayaa xagan u soo gashay? Taasi muhiim ma aha ayuu ku jawaabay, ma rabtaa inaad meeshan ka baxdid? Haa ayay tiri markaasi, iyadoo ilinta ceshanayso. Waa si fiican ayuu dhahay, markaas waxaan kaaga baahanay inaad soo qaadi maabkaasoo dhex yaala xafiiska maamulaha, kaasoo ku tusinaya sida looga bixi karo isbitaalkan, markaas ayaan ku caawinayaa markii aad soo qaadid. Haye ayay tiri Diana, waan aqaanaa meesha ay taalo, isla beri ayaana soo qaadi doonaa. Waa si fiican, aniga xagan ayaan joogi doonaa ayuu dhahay ninkii, kadibna waa uu baaba'ay. Maxaa meeshan ka socda ayay isweydiisay Diana, aniga run ahaantii waa waalanayaa. Subaxdii xigtay sida dabiiciga ahayd, Diana waxaa loo kaxeeyay xafiiska maamulaha oo hadda bilaabay inuu la qabsado joogitaankeeda ayaa iska daayay markaasi inuu isha ku hayo. Kalsooni uu ku qabo awgeed, maanta uu iskaga baxay xafiiska si uu markaasi ula sheekaysto shaqaalaha isbitaalka. Diana bartaas ayay fadhiday iyadoo aamusan, iskana qabsanaysa shaqadeeda, gabi ahaanna waa ay ilowday ninkii habeen hore ay aragtay. Sidaas ayay ahayd ilaa ay ugu dambeyn fiirisay geeska, markaas ayayna aragtay maabkii. Diana markii habeenkii la gaari rabay ayaa markaas waxaa lagu soo ceshay qolkeedii. Xaggaas iyadoo iska fadhida ayay waxay bilowday inay nafsadeeda canaanato. Maxay u soo qaadatay maabka? Ayaka way ogaan doonaan inay maabkii soo qaadatay, kadibna waxay ku dili doonaan korontada maalinka xigta. Gabi ahaanteeda waxay bilowday inay dareento dembi iyo walwal iyo cabsi. Sida ay filanaysayba waa la ogaaday. Maalinkii xigtay dhakhtarka ayaa aaday xafiiska, waxayna aragtay maabkii oo meesha ka maqan, isla markiina waa ay garatay qofka qaatay. Hoolka ayay soo martay iyadoo aad u caraysan, diyaarna u ah inay cadaab marsiiso Diana. Diana aad ayay u cabsanaysay, markaas waxay maqlaysay sharqanta kabaha dhakhtaradda oo aad ugu soo dhawaanaya qolkeeda. Ma aysan haysan wax iskaga ilaaliso, aad ayay u cabsanaysay waxa ay iyadu ku samayn doonto. Dhakhtaradii albaabka ayay fadhay iyadoo si cabsi leh u dhoola cadaynayso. Waxay rabtay inay dhibaatayso Diana iyadoo markaasi ku raaxaysanayso, laakiin intaysa wax samayn ka hor waa la soo qabtay, gudaha ayaana loo soo jiiday. Markaasna dhulka ayaa lagu dhuftay, iyadina way suuxday. Ninkii ayaa u soo laabtay, Dianana markaasi wuu badbaadiyey. Labadoodii wax waqti iskamaysa lumin, isla markiiba hoolka ayay ku dhaqaaqeen, ayagoo markaasi raba inay ka baxaan isbitaalka oo xor noqdaan. Subaxdii xigtay, shaqaalihii kale waxay meesha ka heleen qofkii u maleynayeen Diana, taasoo markaasi sidii dabiiciga ahayd ka qaylo badan. Waxay ku soo xireen kursiga curyaanka, iyadoo qaylinaysa ayay markaasna waxay geeyeen qolka korontada.
waxaa lagu xirxiray sariirta waxaana la bilaabay korontadeedii hore iyadoo laba jibaaran in lagu dhajiyo. Waxay bilowday inay saa'id u gariirto. Ugu dambeyn dhaqdhaqaaqi way joojisay waxayna ka war heleen in markaasi dhakhtaradii maskax ahaan ka dhimatay. dib markii loogu soo laabtay spaceshipka, Diana waxay ka soo baxday riyadii dheereed, haddana hurdo caadi ayay ku jirtaa. Dan Blacker wuxuu hadda bilaabay inuu dhoola caddeeyo sababtoo ah qorshahiisii oo dhan si fiican ayuu iskugu daba dhacayaa.